nabad saaxiibayaal waa mar kale iyo barnaamijkii wehelka wariyaha tababarka saxaafadda ee taxanaha inoo ahaa maantana waa qaybtii afraad waxa aynu ku soo qaadanaynaa saxafiyiinta iyo weliba xilliyada dagaalada sida ay saxafiyiintu isku badbaadin karaan iyo sida ay khataraha uga feejignaan karaan waxaan ognahay in saxafiyiin badan ay naftooda ku waayeen xabado xilliyo dagaalla ay dhacayaan ama rabshado ay dhacayaan waxaan ognahay in saxafiyiin badan ay xabado wiifta ay ku dhinteen waxaan kaloo ognahay in saxafiyiin Soomaaliyeed oo badan inaysan haysan qalab fiican oo ay xabada uga hortagaan warka soo tabinta gobolada ama goobaha dagaalada iyo rabshaduhu ka jiraan waa mid khatarteeda leh hase haatee saxafiyiintu waa ay yareyn karaan khataraha iyo dhibaatooyinka ku soo fool leh qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala wadamada horumaray waxay qaataan daruus la xiriirta isbadbaadinta marka ay yimaadaan xaaladaha khatarta ah sida dagaalada waxaana ay ku guuleysan karaan inay xadidaan khasaaraha soo gaara warbaahinada waaweyn sida BBC-da, CNN, Reuters, ABC, NBC, ITN, AP iyo weliba New York Times sida ay xaqiijisay hay'ad qiimaysa khataraha oo ka jirtay dalka UK waxa warbaahintaasi aan soo sheegnay ay saxafiyiinta u diraan goobaha dagaalada ay ka jiraan walina khatar waa isoo wajahan hay'ado caalami ah ayaa si wada jira ugu qabta warbaahinta tababaro la xiriira sida looga fakado dhibaatooyinka marka ay dagaaladu socdaan waxa sidoo kale ay bixiyaan tababaro la xiriira sida la isku badbaadiyo xitaa haddii la isticmaalayo kiimikooyinka dagaalada la isticmaalo haddaba xilliga safarka qaybtan aad uma khusayso wariyaasha aan inta badan safrin waa in wariyuhu ahaado mid maskax ahaan u diyaar garaysan baaritaan ku samee ama wax ka ogow meesha aad u socoto dadkeeda cimiladeeda wadooyinkeeda iyo weliba xaaladaha ammaan ee kusoo wajihi kara marka aad dagaalka gudihiisa ka howlgalaysaanna qaar ka mid a arrimahan waa muhiim haddii ay suurowdo inaad dal dibadda ugu safarto xaalad dagaal aadna ka soo waranto ha ka tegin khariiradda amase maabka ha ka tegin tooshka iyo weliba qalabada muhiimka ah ee xaaladaha degdega ah ha ka tegin inaad qaadato dawooyinka loo isticmaalo xanuun baabi'iyayaasha waxaa la dhiirigeliyaa xirashada jaakada xabadda la ysaga celiyo walow jaakadaas qudhadeedu ay dhibaatooyin leedahay sida iyadoo culus oo aada u weyn oo ma markaa curyaamin kartaa inaad si habsame leh u socoto marmarka qaarkoodna marka aad isticmaalayso ay dhibaatooyin kaasoo gaari karaan oo haddii adiga oo wata ay xabad kugu dhacdo oo aadan aqoon qaabka la isaga furo ayana khatarteeda ayay leedahay marka xabadi dhacaysa haddaba wariyaha waxaa la gudboon inuusan aad ugu dhowaanin goobaha ay xabaduhu ka dhacayaan waana inuu ku sugnaadaa goob uu xabadda kaga gaban karo waxaa jira kaamirooyin kaa caawin kara inaad dagaalka meel dheer ka joogtid qaabku doona ha u dhaco dagaalkaas waa in wariyuhu la socdaa dhaqdhaqaaqa dagaalka iyo sida ay wax u socdaan isbadbaadinta xilliyada weerarada gaadmada ah ay dhacayaan waa muhiim xilligaasi oo xabaddu dhinac walba ay ka dhici karto lagana yaabo in khasaare markaasi ay kusoo gaarto haddaba tallaabooyin muhiim ah oo soo socda ayaa nafta badbaadinteeda qayb libaaxle ka qaadan kara waxaa ka mid ah qodobadaasi isbadbaadinta nafta kow maskax ahaan iyo jir ahaanba isku diyaar garee inta aadan aadin goob dagaal ka socdo goobaha dagaaladu ka jiraan inta badan waa dhib iyo qaxar badan yihiin horey u sii qaado calaamadaha saxafinimada muujinaya horey u qaado daawooyinka gargaarka degdega ah keligaa ha bixin goobaha dagaalkana ha aadan haddii aad isticmaalayso gaadiid waa in gaadiidkaagu ahaado mid wata sumadda saxaafadda ha isticmaalin gaadiidka militariga taasi waxay keeni kartaa inaad bartilmaameed noqotid ha dhexgelin ciidamada dagaalamaya haddii kale waxaa sahal ah in la kala garan waayo adiga iyo askariga halkaasna khatar ay kaa soo gaarto intaadan safarka bilaabin haddaba wixii tale iyo tusaale ah ee ku aadan halka aad u socoto waa inaad horey usii aruursataa ha qaadan hub hana la safrin saxafiyiinta qaata hubka iyo qoryaha ka taxadar sawir qaadidda dhinaca aad u dhowdahay ee dagaalka ku jira waa inay raalli ka yihiin
in sawir laga qaado. waa inaad ogaataa xasaasiyadda ay leedahay sawir qaadidda xilliyada rabshaduhu ay jiraan. qaado sawirkaaga caddaynta, ha iska dhigin wax aan wariye ahayn. haddii aad la kulantid dhibaato, iscaddee inaad tahay saxafi hawshiisa gudanaya. haddii aad tahay saxafi dhinacyada dagaalamaya u kala gudbaya, weligaa sumadaada aqoonsiga muuji. haddii aad la kulantid marka cagajuglayn iyo handadaad, isdeji una dhaqan si saaxiibtinimo ku jirto. mar walba taxadar qab, xataa haddii xabadda amase rabshadu joogsato. ka taxadar ciidamada. marmarka qaar waxaa jira khibradda iyo tababarka ay qabaan ciidanka dagaalamaya waxaa halis ah inay ku dhibaateeyaan ayagoo si fiican ku hubsan. inta badan xiro dharka shacabka haddii aadan lahayn dharka saxafiyiinta. aqoonsanow xuquuqdaada deegaan ahaan iyo caalami ahaanba. saxafiyiinta goobaha aadka u khatarta ah taga waxay arki karaan arrimo calool xumo ah oo walaac ku muujin kara. marka ha ka xishoon inaad talo raadsato haddii arrimahaasi ay saameyn kugu yeeshaan. inta khibrad aad haysato goobaha dagaalka u gudbi saaxiibadaada wariyayaasha ah. haddaba afduubka. waxaan ognahay afduubka inta badan in saxafiyiinta caalamka lala beegso. hase ahaatee waxaa nasiib wanaaga inkastoo saxafiyiinta soomaaliyeed dil, cagajugleen iyo dhibaato ay la kulmaan, haddana weli waa uu yaryahay afduubka, amase waxaan dhihi karnaa waa tiro aad u yar afduubyada ilaa hadda dhaca. haddaba haddii ay dhacdo in lagu afduubto, waxaa jira xeelado iyo qawaaniin la raaco oo aad ku xadidi karto dhibaatooyinka lagu geysan karo. kow, haddii aad la kulantid xaalad afduub, ha u dhaqmin si xanaaq ku jiro. la soco qaabka ay u dhaqmayaan afduubayaasha. ha ku yaboohin wax macluumaad ah. ha weydiin su-aalo ee ayagu ha ku weydiiyaan. wax saxiixa ha samaynin, waxay doonaan ha ahaadaane. waxaa iska caadi ah marka inaad la kulantid dhibaatooyin caafimaad sida cunto xumo, hurdo la-aan iyo dhibaatooyin kale oo bani aadantinimo. haddii wax lagu weydiiyo ha aamusin. ha daldalmin, hana u daldalmin si furan. ha isku duwan been abuur, hana sheegin beenba. ha iska dhigin qof jaahilah, ha iskana dhigin qof ilow badan. ha caroon ama ha xanaaqin wax walba oo dhaca. waxaa caadi ah inaad u muuqatid qof khalkhalsan ama waraarsan, taasi oo bini aadantinimada qayb ka ah. waxaa caadi ah inaad tustid dareenkaaga iyo ad adeygaaga. waxaa habboon inaad si tartiiba u jawaabto. waxaa habboon sidoo kale inaad si anshax ku jiro u jawaabto. si hadal aysan ku jirin u raac hadallada lagu faro amase fariimaha lagu faro. ka filo inay si xun kula dhaqmi karaan. ha samayn wax doqonnimo ah oo naftaada khatar gelin kara. haddii ay jiraan dad lagula afduubtay, ha ku beerin khalkhal. haddaba khataraha soo wajaha wariyaasha ee aanu ka hadalnay waa kuwa aad u badan. waxaa warbixin la qoray sanadkii 2010 ayaa waxaa lagu sheegay caalamka in khataro badan saxafiyiinta ay soo gaaraan. 20 waddan ee khatarahaasi la sheegay inay ka dhacaan waxaa qaybta lixaad ku jirta dalka Soomaaliya oo sanadkaasi 2010 32 saxafi lagu dilay. waxaana hoggaanka u haysta saxafiyiinta iyo dhibaatooyinka loo geysto dalka Ciraaq oo ay xilligaas ka dhaceen 141 dil oo saxafiyiin. dalka Philippines 68, Algeria 60, Ruushkana 52, halka Colombiyana ay ka dhaceen 42. waa tahay haddaba sawir qaadayaasha xilliyada rabshadu ay dhacayaan. inta aadan bilaabin soo taminta ama sawir qaadidda banaanbaxa ama mudaharaadyada, taxadar weyn ka qaado badbaadada adigoo meesha ka saaraynin inaad sawiro fiican qaadato. xog baaris sii samee inta aadan goobta tegin. weydii dadka soo qabanqaabiya mudaharaadka ama booliska tirada dadka ee ka soo qaybgalaya, dadka ka hadlaya, in la fili karo rabshado iyo isku dhacyo. naftaada taxadar u muuji. haddii aad gaari wadatid, kasii taxadar haddii rabshad bilowdaan meel aad hadhow kasii baxsan karto oo fudud. haddii aad gaarigaaga aad ugu dhaweyso goobta mudaaharaadayaashu ka socdaan ama mudaharaadyadu ka socdaanba, waxaa dhici karta in waxyeelo lagu geysto. boorsada aad kaamirada ku wadatid ha ahaato mid cabirkeedu yar yahay oo aysan ku jirin waxyaabo culus. waxay tan ku sahlaysaa inaad sidaad rabto u dhaqdhaqaaqdid.
qalabka aad wadatid ha ku ahaado mid diyaarsan, sida bateriga kaamirada ha ahaado mid buuxa, kana taxadar inaysan kaamiradu si dhaqso ah kaaga buuxsamin. sida aad uga badbaado tuuryada iyo gacan qaadka ay sameynayaan dadweynaha banaan baxaya, xiro koofiyad adag, iskana difaac dhaqarada iyo dhibaatooyinka. inta badan ha kula socdo qof kaa warqaba inta aad hawsha ku dhex jirto, gadaalna kaa ilaaliya. mar walba waa in saxafigu tabinaya warka ama sawir qaaduhuba aysan u ekaan dadweynaha mudaaharaadaya. iska ilaali inaad la socotid booliska marka aad sawir qaadanaysid, maxaa yeelay mudaaharaadayaashu marmarka qaarkood waxay bartilmaameedsadaan booliska. waa tahay saaxiibayaal, waxaa intaasi inoogu dhan barnaamijkii wehelka wariyaha ee tababarka saxaafadda. inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, waa anigoo ah cabdulqaadir cabdulaahi oo idin leh nabadgelyo.